حيسي حاجك قرصونيو حالكا درسونا الحقيقة 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 هيجي بتوح عليه وحلقوا معها qofkii guri ku jiro quraarado dhagxanta tuurtuuri islaamna margeer wuxuu ahaa inuu gacantiina qabto si uu gacanta ugu qabanay inuu Soomaali kala saaray xidhmadu kala sheego haduu inta garan waayay nabadgelyo waxay nasiib oo dadka reer awdan ee wada degan wada dhashay ee ciisiga dursi u badan qulqulada laga daayo ya kala qaybin Ethiopia biyaha siisa leerkay siisa qaadkay siisa Djibouti inagu ciideenu siina ciidan lagu dhisada Djibouti waa ilmaha ayaan gacanta ku haynaa inaga Ethiopia ilmahu waa inuu idab yeesha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa xaqiiqa barnaamijkeena waxaan ka hadlayaa maanta ama caawa laba qodob qodobka koowaad waa buur madow oo shir ingiriiska kula galay huwantii oo yiri gudaha ana shaqo badan idinka qabanayo tagayay 300 oo nin ayaan samaysanayaa oo ciidana lacagtii kharashkii baan u baahanahay iyo rasaastii hubkii halay maalgeliyo arintaana ay huwantii isla qaateen dalka ingiriiska gudihiisa weekend xirsi ala xaaji xasan iyo kuwan kale ee MU ka soo horjeeday Soomaalida kala ah iyo Soomaaliya iyo dhamaan oo isla ogi xirsina nin wax qariyo ma ahay oo ka soo dhaca hadalkii waa kii dhawaan lahaa buur madow keenna isaga oo waliba roog asfal oo dhidon oo soo dhaweyn doona adan laba hadli karto hadalkiisa iyo xogtina waa wada socdaan wana arki doontaan insha Allah talaabooyin badan sidoo kale waxa la sheegay hadallo imka isku turtureen daraad miyahayd ninka la yiraahdo kala dagaalka in la wada hadashii qodobkaas waan ka hadli doonaa soo taagi doonaa qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeyaan arinta MU-ga shirkan Turkiga ay lagu sheegayay ayaan isagana ka faalan doonaa aan ku horeeyo arinta buur madow runtii waa nin dhiiran oo waxa markaa uu ku dhex jiro qalad iyo sax ku doonaha ahaadee ka badheedha oo warkiisu cad yahay buur madow ilaa intii dagaalkaasi socday in laascaanood wuxuu ka mid ahaa huwanta xamar waa kii tagay de ka qayb galay dawladdii markaas halkaa doonayay inuu ka qandaraasyo ka qaato ama broker ka noqdo dilaala doorashadii ka dhacaysa halkaas uu ku soo baxay xasan sheekh farmaajona ku dhacay ka bacdi dagaalkaas laascaanood qaybta ugu weyn buu ka ahaa waxa uu dhaafsadayna waxaan odhan karaa waa hunguri iyo inuu la fikir yahay kuwan dalka duminaya xirsi hogaaminaya ee wadani sheegta oo dhawaanna ay muuqatay markii ay isku tahniideynayeen London ee xirsi London soo wada keenay xisbiga markuu xayirnaa haddii aan la kuurno yahay haddaan idin xasuusiyo buur madow ninkii intuu warbaahinta yimi ka lahaa lacagta ciidanka qaranka la siiyay mid ka badan baanu siin doonaa waan dhismaana mayso dawladdan iyo oon ridina hadduu muuse dawladda mar dambe madaxweyne ka noqdo aniga jeeray gurida ninkii lahaa buu ahaa wixii uu sameeyeyna way inoo wada muuqdeenoo teelamu dhigan arinta ceelaf weyn ee labada qoys ee aan walaalaha ee wada dhashay lug weyn buu ku lahaa hore iyo dambaysaba maantana lug weyn buu ku leeyahay oo nimankan lahaa waxaan heshiisiinaynaa reer ceelaf weyn ee odayaasha ahaa daacad kama ahayn heshiiska in halkaasi qasnaato oo ilaa inta doorashadu dhacaysa ay qasnaato oo marka ayagu ay doorashadooda ku guuleystaan sida ay qabaan ayay u dhiganayeen in magaranaysa ay geli doonaan arinta laakiin imika daacad kama ahayn hadalkii ay oran kari waayeen nimanka odayaasha ah ee ku dhowdu dee wadani qaarna guddiga xash sheeganayeen qaarna guddidan kale sheeganayeen dee wadani uun ahay haddana dee isu keen magaranaysa kolba magac inoo sheegata wixii ay afkooda kala xishoodeen nin baa yidhi dhowaan
gudoomiye ku-xigeenka saddexaad xisbiga ka ah oo reer yoonisa oo la yidhaha Saleebaan Ducaale ayaa afkiisa ka yidhi marka aanu doorashada ku guulaysano haddaan wadani nahay ayaanu arrinta ceelaf weyn dhamayn doonaa wixii ay nimankaas oran kara waa in bay noo sheegay almuhiim ninkaa buur madow la yidhaah waxa ay huwa isla qaadatay gudaha in laga sameeyo dagaal oo ninkaasi uu dhiiran yahay gudaha uu galo lacag iyo kharash hubna la siiyo wuu soo socdaa laakiin filim maayo inuu ku dhici karo inuu Ethiopia soo maro ama Imaaraadka labadaba in lagu qabanayaa baan ogahay laakiin waxa suuragal ah inuu Muqdisho yimaado ka bacdi Garowe yimaado xagga huwanta ka soo galo shacabka reer Somaliland ciidamada madaniga ah ee habar jeclo iyo dawladda waxaan leeyahay ninkaasi ha u qaadanina nin inagu ah oo inoo oo magaranaysa odageennii ama hogaamiye dhaqameed aynu leenahay waa ninkaa badheeray ee horena u dagaalamay iminkana dagaalka kusoo jira ha loo diyaar garoobo waxay wada socdaana xirsi cali xaaji xasan oo inoo sheegayba inuu imanayo way ku wada socdaan arrinta waxaa kaloo jira haddii alla kuu roon yahay ninka la odhan jiray Mahdi Guuleed oo dowladdan Xasan Sheekh meel laba aan kaga jirin intii imika MAU-gana bilaabmay waa la soo dhaweystay ninka quraya waxay kuwa kale ka xishoodaan inoo qabanaya waa iyaba la yiri waa ninka la taliyaha arrimaha Somaliland buu yahay Xasan Sheekh waa nin gudaha ka dagaalami kara dadku dhexle ayaa la yiri isaguna dhibaatada gudaheena laga doonayo laga sameeyo qayb muhiim u ka yahay dhammaan nimankaasi niman magaceena sheeganaya laakiin aan ahayn oo cidda kale in sayno u shaqeynay weeyaan haddaba adduunka way ka dhacdaa dal kastaaba cad uu leeyahay interest-kooda isku hor imanayo oo duulimaad ku ah dalkooda wuu leeyahay cadowgaa dibadda jooga ama jaarkaaga ha noqdo ama ha kaa fogaado ama ha ku dhawaaday waa la yaqaana adduunka meel la kama dhacdo oo waa inoo kow nin kula jooga oo aad arkayso oo hadlaya oon qarsanaynin oo gudahaagii jooga oo haddana cadowgii ka mid ah meel laba kama dhacdo adduunka inagun bay naga dhacday Somaliland hore uga dhici jirnay maantun bay dhacday arrinta noocaasna dowladda waxa looga baahan yahay inay maadaama maanta dagaalka aynu ku jirnaa uu yahay afartii Soomaaliyeed oo dham ay nagula jiraan in aan la fudaysan haddii alla kuu roon yahay ficil iyo speedkay ku socdaan ka badan in lagu socdo madaxda dalka ee madaxweynuhu magacaabay in badan baan arkay inta xitaa daacadda ahay waxay u haystaan waxaanay ka shaqeynayaan asa company oo kale dahabshiil oo kale ama telesom oo kale inuu shaqo tagayaan arrintu noocaynka maaha ninka madaxweyne magacaabay taladii baa loo magacaabay dalka xil baa saaran ka weyn ka anagana saaran dadka shacabka aan xilka hayn waxa loo baahan yahay inay xil is saaraan madaxweynaha waxa looga baahan yahay xaaladdan lagu jiro kuwii daacadda ka noqon lahaa uu garanaya reer walba waa laga soo helayaa in xuso oo ay la dagaal galaan si kasta hadduu madaxweynuhu daacad u yahay si kasta hadduu u feejigan yahay qof uu noqonaya garbuhu ku duulaya waxa weeyaan dadka uu xuso ee shaqada kala shaqeynaya kuwaasna waxaan leeyahay inta daacadday dalkooda jecel waa xil isa saaro oo company ma shaqeynaysaana dalka waa u shaqeynaysaane ficil alladinka arko dalkiina aad ku difaacaysaan oo ay ugu horeyso warbaahintu halkaa qodobkii buur madow iyo cadowga gudaha ee inagu soo socdee Mahdi Guuleed iyo isuguba ka mid yihiin ayaan ku dhaafay qodobka labaad waxa weeyaan arrintii MOU-gu talaabo kasta way qaadeen dowladda Jabuuti iyo Xasan Sheekh meel kasta diblomaasiyaddii way u galeen waanay ku khasaareen teelo may dhigan farmarna way ka taagan yihiin haddii alla kuu roon yahay maanta Ethiopia way dhaqan galay MOU-gii baarlamaankooda way gudbiyeen waa sharci maanta ka dhaqan galay in heshiiska qabyada ah inuu dhamaystirmo ay ku wada socdaan dowladooda iyo baarlamaankooda Ethiopia dantoodana way u arkaan adduunkii kalena
haddii alla kuu roon yahay maanta cid kastoo isku dayo Ethiopia inay arrimo kala dhex geliso farahay ka laabato way ka qoosatay Mareykanka oo Ethiopia ay saaxiibiin lacag badan siinayay ayay ka diiday waxyaabo badan oo arrimaha khuseeya inay arrintaas tahay in haddii alla kuu roon yahay mid in saxna oo sidaan sheegay ahna waxay iga markhaati furaya kuwii ugu daraa arrimaha Somaliland ka soo horjeeday ilaa markii Mareykan madaxweynuhu tagay maxay dal lahaa xeerka Somaliland baa lagu daray Mareykanka ka dagaalamayay shidaalka ka dagaalamayay Somaliland dal noqotay ka dagaalamayay oo Faysal Roble oo ninka ugu dadaalka badan ragga ugu dadaalka badana kala soo jeeda magaalada yar jecsanay imka shaarsadu ku wareejisay kilka ormada aslan ka soo jeeda oo aan Soomaaliyadan ugu dagaalamay ahaynba ayaa inoo markhaati furaya Faysal Roble waxa kale oo inoo markhaati furaya oo in badan anigu hadalkayga aan doonan jiray doorasho maaha waxaan la gelayaa waa afti Somaliland way jirtaa iyo ma jirto taasoo ay ku tartami doonaan labada xisbiye waaweyn oo midna Somaliland uu aaminsan yahay midna aan aaminsanayn saddexda xisbiye tartamayana labana Somaliland leedahay oo laba Somaliland laga leeyahay midna aan laga lahayn markhaatiga waxay noo furaya Soomaalideena la dagaalamaysa afarta haddii alla kuu roon yahay Soomaaliya oo maamulka khayre taagta daranaya Xasan Sheekha Djibouti kuwa FD jooga kuwa kilka sanaad jooga dagaalka ficil uga qayb qaatay intuba dhamaantu waxay ku wada socdaan haddii alla kuu roon yahay in rajada quray qabaan maanta waxa weeyaan in xisbiga wadani uu yimaado oo ayagu ay leeyihiin koodiya oo midnimada ka shaqeyn doona haddii laakiin muuse soo noqdo in Somaliland ku deysay afkiisu koornay waa khayl dhageysta Faysal Roble waxaad moodaa in wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya hadda ay hakad weyn ay galeen labadii sano la soo dhaafay dawladda Xasan Sheekhna dana kale oo ka badan ayuu ku mashquulsanaa ku tahay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya haddii sida hadda ku sii socoto in ay sii weeqmayso in ay isku soo dhawaato gobolladii Soomaaliya isku oran jiray koonfurta iyo waqooyi anu uma qabo inay sii weeqmayso haddii xurguftan Ethiopia ku soo dhex tuurtay ay ka baxdo adduunkuna cadaadis weyn ku hayo runtii Mareykankuna uu leeyahay wax alle wixii aan karaynin ninka Abiy waan ku niri aan ka ahayn inaan ku kala dhaqaaqno arrinta wax weyn oo ay ummadda Soomaaliyeed sida ay hadda yihiin ku kala tagayaan ila maaha waxyaabo badan baa dhici kara muuse ma soo noqonaya muuse hadduu meesha ka baxa maxaa dhici kara cirre iyo qoladiisu ma muuse kale noqon doonaan mise wada hadalla qiimo leh ayaa la bilaabi doonaa ummadda Soomaaliyeed haddaba siyaabo badan way isugu furan yihiin ilaa kililka shanaad markaad eegto dadku ma kala xidhna dawladaha kala xidhan iyo maamulada arrimahaasna waxay ku xidhan tahay haddii Ethiopia Soomaaliya wada hadalladeedu midho dhaliyaan oo arrintan xurgufta dhextaal ay ka saaraan la rajaynayna sida Mareykanka iyo Ingiriisku ay jecel yihiin in xurgufta Ethiopia Soomaaliya laga dhex saaro aniga waxay ila tahay dibta hadda ku soo korodhay mandaqada Geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda inay yaraanayso waxa laga yaabaa 6 bilood ee soo socda waa very decisive waxa la yiraahdo waa kama dambeyn 6 bilood ee soo socda ama Ethiopia siday rabta ay u kala qoqobi Soomaaliya ama sidii aynu rabnay bay noqono Soomaaliya iyadoo mid ah ay sideedii u soo bixi wixii markaa ka dhiman Somaliland iyo Soomaaliya iyo qaybaha kalena si fiican loo hardaamin doono laakiin waa very decisive 6 bilood ee soo socda waliba 3 bilood ilaa 6 bilood waa dhageysateen waa markhaati inoo furay meel walba waxay ka leeyihiin rajada quray qabaan adowga Somaliland waxa weeyaan wadani oo yimaado wadani markaa yaa leh ayaga maal gashaday siyaasadooda ku shaqeynaya waxbay isku ogyiin waa kuwa afkooda kale rajadaas bay qabaan MOU ugu dhamaanaya Somaliland ku soo noqon mayso Soomaaliya Mareykankuna wuu sheegay iyo dawladda reer galbeedku in meeshan marka imika December la gaaro ay dawladda Afrikaanka ee yimi amniga u yimi Soomaaliya
ay iska noqonayaan markay iska noqdaanna ay al-shabaab imanayso oo muqdisho iyo intaa hawiyuu dego ilaa gaalkacyo ilaa puntland ayagu ay imanayaan etoobiya iyo kenyana ayaga oo ilaashanaya ammaankooda ciidamadoodu ay labada dhinac difaac ka galayaan kenyana dhinaca jubbaland ay iyadu difaac ka soo galayso oo ilaashanayso etoobiyana dhinaca somaliland heshiis wada galeen ay ka ilaalinayso ka ilaalin doonaan ka hor joogsan doonaan in al-shabaab soo gasho heshiisyada aynu galaynana ka mid bay yihiin in la iska kaashado amniga labada dal oo laga hortago al-shabaab arrintaa MOU dhawaan wuu dhamaanayaa somaliland way guulaysanaysaa soomaaliya magaca uuna ahayna mustaqbalkeedii 4 bilood baa ka harsan kuwii lacagta bixin jiray way joojiyeen haddaba inaga maxay nooga baahan yahay madaxweynaheenu shalay toole uu ka hadlay arrinta Djibouti Faysal Al-Waraabo uu ka hadlay dad kale oo aqoon-yahan ah oo cadami aan ka xusi karaa way ka hadleen waxa la inooga baahan yahay hadalkan ficil la raaciyo ficilka la raacinaya waa maxay maadaama Djibouti noo cadaysatay oo diblomaasiyaddii dagaalkeena ay ku waday ay u bedeshay inay bareedho waxa la inooga baahan yahay in Djibouti aynu kala xidhan xuduudda because kuwa imika la shaqeynaya gudaheena jooga ayaa maxal dhibaana leh ama mucaarad sheeganaya dawow tagaalo kuwii kala aqoon ku kulmaane ila dagaalamayay xamar ba tigi karaan oo xeer bay noo yaala ana u tigi karay ayaga oo la fikra waxay isku arkaan meel kale Djibouti iyo Nairobi meelaha ficilkii noo yaala waxa weeyaan sidii maxamed xaaji ibrahim ilaahay naxariisto isagoo uu yeelay wili badda iyo cirka dhulka baan xidhno inuu intaba ka xidhno maadaama ay khatar ku tahay dalkeena iyo dadkeena oo cadaysatay ficilkaas la inooga baahan yahay inaan dadkeenu tagin inaan siyaasiga tagaa uu dambiile noqdo in meel dagaal inoogu maqan ay ahaato ficilkaas ayaa la inooga baahan yahay inaan waxba inoo kala socono oo aynu ka bareedno waxaynu ka faa'iidnaana ma jirto maadaama inagu maqantahay dagaalkeeni bareedhayna inaynu xidhiidhaba yeelana khasaare waxaan ahayn noo keenaysa ma jirto arrimahaasaan kula talina dowladdeena inay ficilna raaciso haddii alla kuu roon yahay dalkana shicib iyo dowlad loo feejignaado dowladdana waxaan leeyahay cadowga dibadda waanu ka adagnahay ka gudaha ee waxay doonaan ku hadlayeen qarsanaynin ee hadalladii ku hadlayaan aynu arkayno waxa la inooga baahan yahay in la maxkamadeeyo oo lala xisaabtamo oo sharciga aynu samaysan lagu qaado oo dowladdu gudaheeda ay gacan kaga shaqeyso wixii ka hor yimaada dowladnimada ayaa la inooga baahan yahay taas haddii la helo dadkani xishood waxba kuma le baqi wax ku leeyihin shuruucda aynu dhiganay ninka ka hor yimaada waa dambiile magac kastuu leeyahay iyo qabiil kastuu yahay taasuun baynu kaga dabqaalan karnaa oo aynu waddankeena ku badbaadin karnaa iyo in saxaafadeena wax laga bedelo oo sidan aynu nahay wax laga bedelo saxaafaddu waa dalka hagta waa dadka hagta dad dagaal lagula jiro afartii koona lagula jiro afartii Soomaalida hayabo ay kula jiraan oo wali haddana aan gudihiisa laga dareemin dalkiisa laga dareemin oo saxaafadiisa laga dareemin ayaan darka wali ma jirto fadhiga laga kacban